munaasabadan habeenkan caawa ka qabsoontay hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa ujeedka munaasabadani waxa uu daarnaa mid lagaga hadlayay nabadgelyada iyo sidii ay bulshadu isku diiwaan gelin lahaayeen waxaana munaasabadani ka soo qayb galay xubno ka socda golaha wasiirada Soomaaliland wasiir ku xigeenno agaasimayaal iyo sidoo kale xildhibaano ka socda golaha deegaanka ee degmada Boorama xogayaha gobolka Awdal aqoonyahan madax dhaqameed iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana sidoo kale munaasabadani iyaguna aan ka maqnayno soo buuxdhaafiyay haweenka kala duwan ee gobolka Awdal intii munaasabadani ay socotay ayaa waxa si weyn looga hadlay sidii ay bulshadu u ilaalin lahaayeen nabadgelyada iskuna diiwaan gelin lahaayeen haddaba hadalla kala duwan oo laga soo jeediyay munaasabadani ayaa waxay u dhignaayeen laba shay oo baa ugu muhiimsan intaan xagga isku nimnay qodob waxa weeyaan waa qodob koowaad oo maadaama aynu nahay dal Soomaaliland oo geedka Afrika dalalka ugu amniga badan leh amnigeena saan kor ugu qaadi lahayn u ilaashan lahayn qodobka labaad waxa weeyaan in ay soo dhowdahay diiwaangelin haddaynu ree awdan lahayna mar walba marka dambe isweydiina maxaan marka hore isku diiwaan gelin weynay inaan marka labada qodob iska wacyi gelino ayaan meesha soo istaagay arrintan caawa laga hadlay nabadgelyada loo tilmaami maayo ilaahayna wuu inoo adkeeyay inaguna waan garanay laakiin taan u baahanahay waxa weeyaan cod bixinta anigoo bahdii kale ee lagu tuhmayay aqoonta na u taagan halkan waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin aan si nabad looga maarsamay wadanka ma jiro wax xog ah ama wixii la oran jiray tiro-koob guud wadanka ma jiro marka waxa kaliya jira ee lagu doodo ee meel yaala ee wax la isku weydiiyo waa taa cod bixinta wasiiradana maanta hadday arrinkaa garteen waa arrin ay horjoog uga ahaayeen gobolka sidan weli looma agaasimin xaflad sidana oo sidan looga hadlayo oo runtii ah labada qodob ku saabsan mid waa nabadgelyada Soomaaliland nabadgelyadeedu halkan bay ka tagtay awdal bay ka hana qaaday ilaa bari bay gaadhay waxa fariin loo dirayaa rag badan oo xisbiya qaran maamula oo maxay leeyahay wadankan curdinka ee nabadgelyadu ka hana qaaday ku hadlaya oo le 13 November waxba dhacaya maanta inagu waxaan ka hadlaynaa diiwaan gelin gobolada kalena wax kale laga sheekeynaya gobolada kalena waxa laga yaabaa in wax kale laga sheekeeyo waxa kale laga sheekeynayaan wax saliir raad leh ma waxaad moodaa maanta azaabta qaarin ee ololo ku jireen markay bariga joogeen inay ololo ku jireen hanjabaadu way iska jirtaa oo mucaaradka iska laho Soomaalidu waxay ku maamaadaan dhuusa geel mana urto mana oosho waxa weey horta nabadgelyadu nin walba waa u dan weeyay seeriya awdal de nabad bay ku jiraan nabad baynu nahay inaan nabadeena xajisana weesha wax yaalla weeyaan inay nabadeena xajisana wax yaalla weeyay kuwa walaaleena isku bootorinayna waxa la nabadgelyada naga saarina de kursi ma anagu kursi ma jeednay diiwaan gelintu dadkeenu shalay waxa noqonay waxan waxba ba ahayn ismayna diiwaan gelinin dadkeena ban iyo guban meel baa u jooga judi badan in la geliyo u baahan tahay codkana isdiiwaan geliya bay albaab u garaaca qalada wixii 15 jil gaaray ama ka weyn inoo diiwaan geliya hadduu saaji tiro bato iyo hadduu buuxana tiro bato kii badiyaba gobolka Awdal iyo saamigiisii labada qodob ee halkan laga hadlayo horta lambar 1 gobolka Awdal wuxuu ku suntan yahay nabadgelyada iyo amniga inay ilaashadaan ummadda aan madax dhaqameedka u nahay ee gobolka taas waanu ku dhiirigelinaynaa waanu u taaganahay talabaad inay isdiiwaan geliyaan dadweynaheena gobolka Awdal taariikhda u barteen oo bariga hore wax isku diiwaan geli waayeen waanu taariikhdeena farta iyo la naga heli doonaa waa taariikh waniyo weelkeena aan wax ku ridano inagu filan wax ku filan oo dadka kaftalka kula wadaagno han ku ridano weelkeena oo kaarka aan qaadano kaarku waa tiradeena waa tayadeena waa dadnimadeena hadhow maxaan lanaynaa saani hawshid saanigeena maawe waa codkeena anigaba waxaan moodayaa inay xafladu anigaba ii timid waayo wixii aan qalbigayga ku hayay ee niyadayda ku hayay ficilkayga ku jiray baa laga hadlayaa ana waa u fadhinaada kaar qaadashada kadeeyinka dhalan doonana inaan kaar qaado wadani baan caawa ka soo baxay caawa
ونيو وحيد ماشى قرية كهدافي كحرك حرو أتج متقنا كل مية كدادك ماشى صانك في عن هل كان عاو وحيد السجون مي أو أي داريد نبت قليدا يدي وانكلينتا لبضع منط نينا نقرنين أو قبل كشوجاي مشرتو ugu dambeyn waxa iyagu munaasabadani hadalka iska daba qaatay agaasimayaal wasiir ku-xigeenno iyo sidoo kale wasiiradii ka socday xukuumadda Soomaaliland waxaana ay bulshada ugu baaqeen sidii ay xoojin lahaayeen nabadgelyada isla markaasina ay isku diiwaan gelin lahaayeen macaaradkeena iyo maxaafidkeennaba waxay naga go'an nabadgelyadu inay jirto waa wax xaqiiqa weeyaan cid looga cabsanayo maanta magaalada joogto isna waxbay sameeyaan ma jirto Soomaaliland waxa ka jira waa codka beel walba tirada cod bixinta ay keento uun laga gabadaa in aynu hawsha guntiga dhiisha iska dhigo halkani waa Boorama waa gobolkii Awdal gobolada galbeedku waxay macruuf ku yihiin oo lagu yaqaanaa nicamka weyn Ilaahay siiyay waxa weeye nicmada amniga nicmadaasina inay ilaasheen oo ay ku shukriyeen way ka muuqataa mowduuca laga hadlayay guntiisu waxay ahayd aan isdiiwaan gelino marka aad meeqaamkaaga joogsato in lagu ixtiraami doono codkaaga intuu leeyahay inaynu diiwaan gelinta u diyaar galowno innaga inama saarna wax kale maanta waxaan saarna codkeen inaan doonano shacbigeenna oo aynu waayeel iyo dhalinyaro iyo da'yarta 15 sano gaadhay aynu voodkooda u ogolaano oo ay qaataan kaadhkooda hagrasho maanta yaan la gelin hagrashayaan la gelin sheekooyinkan kale suuqa socdana iska ilooba shaqadeenu waa isdiiwaan gelin inta dawlad dadaalla wadax ordayna laakiinse waxa weeye waxaan laga maqan bar haddaan ognahay in awoodda lagu kala badiyo anagu gacanta haddaan ku haynoon ognahay codkeegu lagu dheeraan lahaa waxaan soo dhicin lagu badaan lahaa waxa weyn caaw waxaan idinku yeedhay waxaan leeyahay kama hadlayno kaabeen ma jeedo xisbi wadaniya kama hadlayno xisbi kulmiya caaw kama hadlayno marka la isbari doonayaa la waxsiyo la oranayo dee ninka soo markaa ka fiiraysa si laakiin caaw waxaan isku imanay oo leenahay dadka ku nool gobolka Awdal dhammaantii oday iyo inan iyo gabar iyo islaan waxaad ku dadaashiin in aad muujisiin cududiina habeenkii caawan wax igu riday lahaa wax dadka meesha waa la ila qaybsanaya laakiin maalinta ana sacab ka dhigto waa maalin gooniya laakiin dadka guud man caaw ka fikirayna leenahay war aan waxa aan leenahay ridin codkeena aan muujino sharafteena ku jirta Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri wararka Hon Cable Boorama